Asalaamu calaykum asxaabtayda ku xiran baajka Saki Cabdinuur. Waa idin salaamnay marka hore. Halkan waxaad ku aragtaan gabadh Soomaaliyeed oo ay haystaan niman Soomaaliyeed. Taasoo ay ku sameynayaan kufsi wadareed ah in gabadhaas ay ugu yimaadeen gurigeeda ayna ku weerareen goobtii ay deganeyd. Bal ila daawo in yar adigoon bixin goobtana ka bixin. Gabadhan Soomaaliyeed ay isqabsanayaan ninkaas kadib wuxuu sameynayaa wuu qabanayaa. Nimankuna waa 3 nin oo wada socda oo waxoodii iyo agabkoodiina u dhameystiran yahay sida ay la muuqato waxaan u maleynayaa marka hore meeshii ku qaylinayeen bay ugu soo gashay mise iyaga meesha ugu yimi. Waxaynu aragnaa in ay qabanayaan gabadhaas ayna sameynayaan waxyaabadii aan indhaha u quruxda badnayn. Wadankii waxaa ka jira in hablihiisa loola dhaqmo qaabka lagu sameeyo kadibna hadhowto laamaha amnigu ay sii daayaan ama ay ka xaalaan arrimo yaryar oo family-yada iyo waxyaabahaas ah. Dhibaataduna aysan halkaa kaga istaagin hablaha iyo dumarka. Ragga Soomaaliyeed la marsiin lahaa waajibkooda nin walbo sameeya kiis xadguduba in la marsiiyo wixii shareecadu ay ogoshahay wuu yaraan lahaa. Laakiin hadda waxay noo muuqata inaan waxaas dhagba jaraq loo siinayno wax walba lagu bedelay dhaqan iyo oday xeerinaya arrinka. Hadda waxaana waqtiyadan ugu dambeeyay xaaladaha ay ka soo xumaanayaan sidii hore social media uu noqday meelaha lagu soo bandhigo waxyaabaha faaxishooyinka. Waxayna noqdeen wax aan laga xishoon oo meel walba yaalla. Wada rataan raggan si gabadha u geliyaan si u faraxumeynayaan qaabka ay u bahdilayaan. Wuu qabsanaya gabadha wuu lagdaya waxay doonaan waa sameyn karaan niman bareeray oo duubaya waynu aragnaa iyadu laakiin ma aragto in la duubayo. Waxaana ku socdaa waa video kadib wuxuu sameynayaa xariifka labada xariifka kale waxay uga soo baxayaan xariifkaas si uu isagu wax walba u sameysto oo hawshaan isagu guto. War Soomaaliyeed waxaan leeyahay meeshan ka qaada hablaha oo kor u qaada dhibaatooyinka loo geysanayna waa in noqdaan mid walba waajibkiisa la mariyo. Wassalaamu calaykum.